wakiilada beesha caalamka ayaa qaaday tallaabo hor leh taasi oo ku aadan sidii dhinacyada Soomaalida mar kale la isku horkeeni lahaa maadaama kulamadii ugu dambeeyay ay ku soo dhamaadeen is-afgarawaa iyo sidoo kale fashil dhinacyadu ay ku kala tageen. kala aragti duwanaanshiyaha labada dhinac u dhaxaysa ayaa waxay tahay mid aad u kala fog marka laga ambaqaado dadaalada iyo sidoo kale qorshaha ballaaran ee labada dhinac mid kasta uu ku dhagan yahay. dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale golayaasha kala duwan ee xubnaha mucaaradka mid kasta oo kamid waxa uu markaasi taagan yahay mowqif adag ay adag tahay inuu kaga tanaasulo rabitaankiisa. dowladda federaalka ee Soomaaliya doorashooyinkeeda iyo sidoo kale waxyaabaha iyadu ay qorsheynayso waa mid ka duwan waxa ay mucaaradku markaasi ay damacsan yihiin. dadaaladii ay wadeen dowladaha Mareykanka, UK iyo sidoo kale dowladda Turkiga waxay noqdeen kuwo markaasi aan suurtagal noqon saacadihii la soo dhaafay kulamadii ku soo gabagaboobay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. laakiin beesha caalamka ayaa hadda waxa ay qaadaysaa tallaabo kale oo ka duwan sidii markii hore la isku doonayay in dhinacyada loo qorsheeyo. wakiilada beesha caalamku markan waxa ay qorsheynayaan in dadaal dheeraad lagu bixiyo sidii loo dardargelin lahaa xaaladda iyo sidoo kale qorshayaasha ballaaran ee la xiriira in dhinacyada Soomaalida ee mucaaradka meel la isugu keeno maadaama hadda ay yihiin kuwo kala tafaraaruqsan sidoo kalena halkaasi ay noqoto mid si weyn halkaasi looga jaangooyo. wakiilada beesha caalamka kulamadii is-aragga ee gudiyada ee u dhaxeeyay dhinacyada maadaama ay fashilmeen markan waxa ay doonayaan in si weyn markaasi ay u wada kulmaan mucaaradka sare maadaama la doonayo in la is horkeeno dowladda federaalka ee Soomaaliya hoggaankeeda sare gaar ahaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Xamza Cabdi Barre iyo Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac iyo xubnaha kale ee mucaaradka. wararku waxa ay tilmaamayaan in wakiilada beesha caalamka oo ay si gaar ah u doorteen Sheekh Shariif Sheekh Axmed, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale xildhibaan Xasan Cali Khayre in ay noqdaan kuwa matalaya xubnaha kale ee mucaaradka. inkastoo ay adag tahay ayaa la leeyahay in Xasan Cali Khayre iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kulanka lagu wada daro. si walba ha ahaatee dhinacyadu waxa ay si weyn isugu diidan yihiin xaaladaha guud ee jira waxaana hadda muuqata golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo ay ku mideysan yihiin xubnaha golaha samata bixinta iyo sidoo kale dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. Farmaajona uu banaanka ka yahay in dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ayagu ay si weyn markaasi isugu jahwareereen. mid walba oo kamid dhinacyadu waa ogol yahay mana diidana doorashooyinka tooska ah in la aado laakiin waxa la isku hayo waa in laga hadlo sidii loo mari lahaa iyo sidoo kale hanaankeeda waana qorshe ballaaran iyo sidoo kale waxyaabaha la xiriira arintaas iyo sidoo kale tallaabooyinka loo qaadayo. dhan walba ha ahaato madaxda hadda ishaya ee mucaaradka iyo sidoo kale dowladdu mid walba oo kamid waa uu diiday inuu ka tanaasulo halka uu taagan yahay. hanaanka doorashada loo marayo in la cadeeyo inaan laga tagin nidaamka 4.5 ee qabaliga iyo sidoo kale qoondada haweenka ee 30% waa ajandaha mucaaradku ay banaanka soo dhigeen. laakiin Xasan Sheekh Maxamuud dhankiisa waxa uu wataa doorasho taasi oo aad moodo inay ka duwan tahay mid ay mucaaradku wadaan. hanaankeedu waa mid uu qarsan yahay sidoo kalena doorashada waxa la yiri waa mid isku sidkan laga bilaabo doorashada golaha deegaanka, golaha wakiilada dowlad goboleedyada ilaa iyo sidoo kale xildhibaanka ugu sareeya dowladda federaalka ee Soomaaliya inta aan looga gudbin madaxweynaha jamhuuriyadda oo ay dooran doonaan 270 xildhibaan ee la soo doorto. mid walba oo kamid dhinacyadu waa la isla ogol yahay in la isugu tago teendhada Afisyooni halkaasna ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda sanadka 2027. Xasan Sheekh Maxamuud sanadkii uu ku darsaday waa loo daayay laakiin haddana waxaa muuqata in qorshaha iyo sidoo kale dadaalada ay si weyn dhinacyadu ay isugu hayaan marka laga ambaqaado xaaladaha guud ee taagan. wakiilada beesha caalamku hadda waxay bilaabayaan cadaadis dhab ah kaasi oo ka duwan tallaabooyinkii hore waxaana hadda muuqata in miiska la isku garaacayo si weyn la isku weydiinayo. dowladda federaalka ee Soomaaliya wakiilada beesha caalamku waxa ay kala kulmayaan cadaadis xoogan marka laga ambaqaado in dhinacyadu ay si weyn isugu diidan yihiin xaaladaha iyo sidoo kale waxyaabaha guud ee jira waxaana haatan muuqata in si weyn markaasi loo sii ambaqaadayo qorshaha iyo sidoo kale waxyaabaha guud ee taagan. cadaadiska dowladda federaalka ee Soomaaliya la saaray waxay si weyn markaasi u muujiyeen in markaasi dhinacyadu ay si weyn isugu hayaan xaaladaha guud ee taagan. howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AUSOM Soomaaliya waa qayb kamid waxyaabaha wakiilada beesha caalamka iyo sidoo kale dunidu ay hadda si weyn uga walaacsan tahay maadaama mandate-ka dowladda uu dhamaaday haddana sidoo kale aan la haynin qorshe ballaaran oo arintaasi la xiriira. waxaa muuqata in dadaalada iyo sidoo kale waxyaabaha sida weyn la isugu diidan yahay ay tahay xaaladda haatan taagan.
qorshe walba ee socda, waxyaabo walba ee taagan dhammaantood waxay muujinayaan xaaladaha guud ee socda. Si walba ha ahaatee, wakiilada beesha caalamka ee dowladaha Mareykanka, UK iyo sidoo kale Turkiga, mid kasta oo ka mid ah waxaa la leeyahay waxa uu wataa saameyntiisa gaarka ah ee uu ku leeyahay dowladda federaalka ee Soomaaliya dhexdeeda. Kala jabka mucaaradka iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la leeyahay xilligan ma ka mid ahaan inuu dadaal ugu jiro iyo qorshaheeda in xilligan heshiis dhaba la gaaro. In dhinacyadu aysan ogoleyn arrintaasi waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn. Mas-uuliyiin ka tirsan mucaaradka waxa ay markaasi ilo xogagaal ay u sheegeen in dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan iyadu diyaar u ahayn in uu soo dhammaato xaaladda heshiis dhabana la gaaro. Taasi waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda sida weyn dowladda federaalka ee Soomaaliya loogu haysto. Waxaana arrintaasi ay muujinaysaa in dhinacyadu ay si weyn markaasi ugu kala aragti duwan yihiin xaaladaha guud ee taagan. Golaha mustaqbalka Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda federaalka kulamo dhowr ayay ku qaateen xayndaabka Xalane. Dhammaantood waxay ahaayeen kuwo aan suurtagal noqon oo mar walba waxaa lagu kala tegayay halka la isku hayo ee ah doorashada iyo hanaankeeda. Ma jiro tanaasul loo muujiyay shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale kuwa la daalaa-dhacaya dhibaatada ee laga dhaxlay isqabqabsiga iyo sidoo kale muranada taagan. Dowladda federaalka ee Soomaaliya haatan waxay u muuqataa in qorshaheedu uu yahay mid aan horay u soconaynin, laakiin si walba ay noqoto iyadu waxay u dagaalamaysaa hirgelinta hanaanka iyadu ay doonayso. Ku mashquulitaanka doorashooyinka dowlad goboleedyadu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee dowladdu haatan ay wado, sidoo kalena mucaaradku ay faraha uga qaadeen. Laakiin waxaa la leeyahay marka laga soo dhammaado doorashooyinka ayaa noqon doona kuwa ugu waaweyn ee dhinacyadu ay si weyn markaasi isugu diidi doonaan. Si walba ha ahaatee, xaaladaha guud ayaa noqon doona kuwa aan la saadaalin karin halka ay ku soo dhammaan doonaan. Wakiilada beesha caalamku hadda waxay bilaabeen cadaadiskii ugu dambeeyay iyo dadaaladii ugu xooganaa kuwaasi oo la gelinayo dhinacyada Soomaalida. Wararku waxay tilmaamayaan in miiska la isku garaacay cid walbana lagu qasbayo in ay qaadato go'aanka ama sidoo kale in laga wareejiyo talada iyaga gacantooda. Wakiilada beesha caalamku si cad ayay u sheegeen in weli taladu ay hoos taalo gacmaha Soomaalida, loona baahan yahay iyagu inay muujiyaan tanaasul iyo sidoo kale dulqaad buuxa. Laakiin haddii arrintaasi ay dhici weyso, la qaadi doono qorshe ballaaran iyo sidoo kale waxyaabo u muuqanaya goodis. Si walba ahaatana, xaaladaasi ayaa noqon doonta mid kale oo sii xumaysa xaaladda guud ee taagan. Dowladda Turkiga u dhowaanayay ahayd markii ay bedeshay safiirkeedii Soomaaliya kadib markii lagu eedeeyay in galaangal siyaasadeed uu ku yeeshay siyaasadda gudaha Soomaaliya, isagoo markaasi dhinac gaara u xaglinaya, si gaarana loogu eedeynayay in Xasan Sheekh Maxamuud uu saaxiib gaara ka dhigtay. Taasina waxay muujisay in dowladaha UK iyo sidoo kale Mareykankuna dhankooda ay qaataan tallaabooyin ay ugu digayaan safiiradooda inay siyaasadda Soomaaliya ay galaangal ku yeeshaan marka laga anba qaado doorkooda iyaga dhexdhexaadinta ay ku leeyihiin dadaalada socda. Si walba ha ahaatee, mucaaradka iyo dowladda ayaa weli aad u kala fog. Shirkii ugu dambeeyay ee bilowday Isniin, Talaado iyo sidoo kale Arbaco oo maanta ah waxa uu ku soo dhammaaday is-afgaranwaa natiijo la'aana. Dhinacyaduna mid kasta waxa uu ku dhagay halkiisa, geedkiisana looma goynin, waxaana taladu ay ku soo dhammaatay iida iyo kuu daymaayo ama ii tanaasul. Tanaasulkii dowladda laga sugayay ma noqon sidii la rabay. Mucaaradkuna ayaguna waxa ay rabaan kama aysan tanaasulin. Taasina waxay noqotay mid aan la holi karin.